السلام عليكم دمانتين وادي سلامي مركله كل نوعا كسر هذا جنرال كتاريخ موضوع maanta kaga hadli doono waa dhacdo ka dhacday dalka Mareykanka iyo sheekadii quraafaadka ee ninkii cagaarna maxaa ka run ah sheekadan sideese u dhacday galbeedka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxa aad u badan inaad maqasho Greenman ninkii cagaarna ama cirfiidka naxdinta badnaa ee la arko isagoo lugeynaya dadka magaaladan ayaa cabsi badan ka qabay wado ay ku sheegeen inuu isticmaalo ama habeen kasta lagu arko ninka cagaaran oo xilliyada habeenkii ah dhex soconaya wadada dhinaceeda taagan waxaa jira sheekooyin kala duwan oo ay dadku warinayaan ama ay ka sheegayaan qaabka uu yahay ninka cagaaran laakiin qof walba ninka waxa uu ku tilmaamayaa midab cagaaran oo la yaab leh waa cirfiid waa jin waa mucjiso la yaab leh ay oranayeen dadkii mar quraasha qaab ku siiyay ninka cagaaran dadka maxalliga ah ee aaminsan sheekooyinkan waxay kala talin lahaayeen inaadan u safrin wadadaasi habeenkii waaba haddii mid ka mid ah uu la kulmo ninka cagaaran Greenman laakiin waxaad had iyo jeer jiri jirtay dadka qaar oo kugu dhiirigelinaya inaad wadadaasi marto si aad mar u aragto ninkan la sheegayo ishaaduna ay qabato ilaa 1985 ayaa ugu wardambeysay in la arko ninkan cagaaran qof kastana waxa uu isweydiin jiray waliise way jirtaa cabsidiisii ay dadkaasi ka qabeen ninka cagaaran ma ahayn cirfiid jin iyo wax aan la aqoontoona wuxuu ahaa nin caadi ah oo dadka asaliga ah ay wada garanayaan magaciisu wuxuu ahaa Raymond Robinson wuxuuna noolaa sanadihii 1910 ilaa 1985 wuxuu wadooyinka ku lugeyn jiray xilligii habeenka ah iyadoo wadooyinka ka baxsan magaalada lagu arki jiray Raymond wuxuu jiray 9 sano markii uu dhaawac ka soo gaaray isagoo oo fuulaya buundo kore si uu uga eego buulshimbiro waxaana halkaasi uu ka soo dhacay isaga iyo wiil 2 sano ka yaraa oo shilkaasi ku dhintay wuxuu ku waayay shilkaasi labadiisii indhood sankii hal dhig iyo gacan uu ka jabay wixii markaa ka dambeeyay Raymond waxa uu joojiyay in maalin uu u soo baxo magaalada isagoo mararka qaar soo bixi jiray habeenkii markii uu weynaaday waxa uu ku dhex noolaa guri magaalada ka baxsan dadku waxa ay ugu yeeri jireen naanaystan haris daran ee ah Charlie No Face inkastoo ay xaqiiq tahay in Raymond uu ku dhex dhunto duurka marka uu maqlo qof soo socda ama codkiisa dadku waxay ahaayeen kuwa raadinaya ninka cagaaran Raymond inta badan uu ka fogaan jiray dadka laga yaabay inuu ka baqayo kuwa dulmiyo oo ka maadaysta balse mararka qaar waxa dhici jirtay inuu la kulmo dad kuwaasi oo caawin jiray sidoo kalena sawiro la geli jiray inta la'aan darteed iyo xaqiiqda ah inuu habeenkii oo kaliya socon jiray Raymond waxa ku dhacay dhowr jeer gawaarida dhamaadka noloshiisa wuxuu joojiyay socodkii habeenkii dhamaantiis wuxuuna noloshiisa ku dhameystay Brevard County Geriatric halkaasi oo uu ku dhintay sanadkii 1985 Raymond Robinson waa uu ka tagay dunida laakiin waxaa markasta lagu soo xasuusanayay sheekooyinka quraafaadka ah ee ah Greenman-ka ama ninka cagaaran oo ilaa hadda weli deegaankii uu ka soo jeeday looga sheekeeyo mararka qaarkoodna ay ku oranayaan weli waa la arkaa intaas ayaanu ku soo gabagabanayaa mowduuca maanta oo kaga hadlaynay ninka cagaaran